wixii la sugaba ciyaartii aadka u adkeyd ee Khabib iyo Justin way imatay saacada ayaa noo dhiman waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno labadaas nin ee caawis hayaan السلام عليكم أخيارتا كحرن جانلكا كياب إنجريس كسو دوادا مقال عصب وعن سوبر بردي دونو هاليغ إسلامكا ولغي عيارها MMA دولك لديين أما عن لغرينين وخبيب نور ماغاميدوف iyo Justin Gaethje oo isagana aan la sahlan karin Khabib wuxuu haystaa rikoorka in wali laga badin ciyaaraha MMA-da UFC-da marka loo fiiriyo Justin oo laba mar laga badiyay ciyaartan oo tirsigeedu yahay UFC 254 ayaa waxay ka dhacaysaa dalka Istaga Imaraadka khaasatan Abu Dhabi ciyaartan Khabib iyo Justin u dhaxaysa waa ciyaar dunida dhan ilgaar lagu fiirinayo sababtoo taaktiikadii lagu holin waayay Khabib sida legdanka qabsashada awoodda leh feerta iyo waliba darada ayaa kuwa uu dhigiisa Justin isna ku dheereeyo taasana keentay in ciyaarta aad xiiso gooni ugu lahaato daneeyayaasha ciyaaraha UFC-da got his back, got his neck, got under the neck, was cranking his neck. It was really more of a neck crank than it was. haddii si loo fiiriyo Khabib waxa ka dhintay bilo ka hor aabihiis oo aan aabe kaliya u ahayn laakiin wuxuu u ahaa dhiirigeliye tababare iyo waliba aabe baro dagaalka dhanka psychologiyada laakiin Khabib mar la weydiiyay saameynta ay ku leedahay dhimashada aabihiis ee ciyaartan aadka u adag ayaa wuxuu ku jawaabay inuu ka qaadi doono adeeg dhanka kale Justin Gaethje mar la weydiiyay sida uu ciyaartan aadka u adag u wajihi doono Khabib ayaa wuxuu sheegay inuu garanayo taktiikyo aad u badan oo uu lagdanka Khabib uga baxsan karo iyo inuu Khabib celin doonin xaraantiyada aadka culculus oo uu waliba hal meel uga celcelin doono ilaa uu iska dhiibo Khabib waxa xusid mudan in Khabib horey ula dagaalamay ninka la yiraahdo Johnson oo uu kareeyay sidoo kalena Justin ula dagaalamay ninkaas uuna kareeyay halkaasna waxaa laga arki karaa inay ninkaas dagaalankiisa ay baraajo ka yihiin Khabib ayaa si cajiib uga jawaabay su'aal la weydiiyay in cimilada garoonka Abu Dhabi ciyaarta lagu qabanayo ay aad u kulushahay laakiin wuxuu sheegay in si kasta ay kuleel u tahay uu dhigiisana kuleelka kula jiro sidaa darteed ay labadooduba saameynayso oo isaga keli aynan saameynaynin cimilada garoonka waxaa dhici karta in awoodooda dhanka dagaalka uu noo kala saari karo ciyaaryahan kale ee la yiraahdo Dustin Poirier sababtoo Dustin Poirier labadaba wuu la ciyaaray laakiin ciyaartii uu lahaa Khabib uu ku guuldareystay midii uu lahaa Justin Gaethje uu ku guuleystay ugu dambeyn Khabib wuxuu ballan qaaday inuu ka daalin doono Justin oo uu wareegga saddexaadna u ka rayn doono fadlan qaybta hoose ee commentiga noogu reeb qofka aad isleedahay inuu rayn doono Justin Gaethje iyo Khabib Nurmagomedov fadlan haddaad ku cusub tahay channelka Kevin Grease like ta subscribe ka comment ka share kana